diblomaasiyadda ayaa aadamuhu qarniyo badan horumar ka sameeyay iyadoo la jaan qaadaysa horumarka aadamuhu ka sameeyay dhinacyada kale ee nolosha. Dunidan aan joogna hadda, xasaanadda diblomaasiyadeed waa mid ka mid ah shuruucda caalamiga ah ee ugu qadiimsan. Xasaanadda diblomaasiyadeed waa sharci iyo heshiis ilaalinaya diblomaasiyiinta, kaasi oo ogolaanaya inay si xor ah kana fayo faragelin iyo cagajuglayn toona u gutaan shaqada qarankooda uga idmaday dal kale. Waxaana saxiix heerkan caalamiga ee diblomaasiyadda dhammaan wadamada caalamka ee la aqoonsan yahay, iyadoo wadamadii ugu horreeyay saxiixeen sanadkii 1961. Shaqada ugu weyn ee qabtaan diblomaasiyiintu waxaa ka mid ah ka shaqaynta danaha dalkooda uu ka leeyahay dalka uu u dirsaday, danahaas oo leh siyaasad iyo dhaqaale, soo ururinta xogaha kala duwan ee dalkiisu uga baahan yahay dalka loo diray diblomaasiga, u fulinta muwaadiniinta dalkiisa adeegyada ay uga baahan yihiin dalka dibadda uu joogo, sida soo saaridda baasaboorka, warqadda dhalashada, dhimashada iyo warqadda caddaynta guurka. Qodob kale oo muhiim ah isna waa bixinta fiisayaasha. Xasaanadda diblomaasiyadeed ayaa loo qaybin karaa labo. Tan koowaad waa xasaanadda ay leedahay safaaradda iyo hantideeda, sida dhismayaasha, dhulka, gawaarida, dukumentiyada iyo qalabka kale oo ay leedahay oo looga dhex shaqaynayo safaaradda. Dhammaantoodna in dhibaato dibadda uga timaada laga ilaaliyo oo waajib saaran dalka ay ku taalla safaaraddaas ee martigeliyay. Waxaana la ogolayn inay soo galaan gudaha safaaradda cid ka socota ciidanka waddanka ay ku taalla marka laga reebo duruufo gaar ah oo u fasaxaya inay jiraan ma ahane, sida in damdamisku soo galaan kadib mar uu dab ka kacay oo dad laga soo badbaadinayo. Xaaladaha caadiga ah ayaan la ogolayn in dal galo safaarad dal kale. Haddii ay taasi dhacdana waxay ka dhigan tahay waddanka safaaraddiisa la galay in dagaal loo cilaamiyay, dhul uu leeyahayna lagu soo xadgudbay. Si taas looga fogaado, wadamada caalamku waxay iska ilaaliyaan inay galaan mid ka mid ah safaaradaha ku yaala dalka. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa Julian Assange, aasaasihii Wikileaks oo ku jiray ilaa sanadkii 2012 safaaradda Ecuador ay ku leedahay London, halkaas oo ka helay magangelyo. Ciidanka Ingiriiska ayaa la siiyay amar inay soo xiraan si loogu soo oogo dambiyo kala duwan oo lagu soo eedeeyay. Hase ahaatee, waxaa ka hortaagan in la xiro ku jiridiisa safaarad dal madax bannaan una ka helay magangelyo. Safaarad kasta meeshii ay rabto ha ku taale waxaa astaan si sahlan loogu garan karo u ah inuu ka taagan yahay calanka waddanka leh safaaradda. Tal labaadna waa xasaanadda ay leeyihiin diblomaasiyiintu oo ugu horreeya safiirku. Diblomaasiyiinta kala duwan ee caalamka meesha ay rabaan ha joogeen, shaqadooda diblomaasi ayay ku mudanayaan in si gaar ah loo ilaaliyo, la xirin, canshuurna aan laga qaadi karin alaabaha ay la soo galayaan dalka, sidoo kalena aan wax baarida la marin karin boorsooyinka ay la safrayaan marka ay dalka soo galayaan ama ka baxayaan. Dhanka kale, qoysaska diblomaasiyiinta ayaa leh xuquuqo gaar ah, kuwaas oo ogolaanaya inay yihiin dad mudan in si gaar ah loo ixtiraamo. Diblomaasiyiinta ayaa dadka caadiga kaga duwan astaamo ay leeyihiin, kasoo bilow baasaboorka ay wataan oo ka duwan dadka caadiga ah. Waddan kasta wuxuu siiyaa diblomaasiyiintiisa dibadda ka shaqaynaysa iyo madaxda sare baasaboor diblomaasi, kaasi oo ka caawinaya inay si sahlan ugu kala safraan wadamada caalamka. Helidda fiisaha si dhaqso ah iyo inaan lagu baarin garoonnada caalamiga ee diyaaradaha. Arrin kale oo ay kaga duwan yihiin dadka caadiga ah diblomaasiyiintu waa taarikada baabuurka oo gawaarida safaaradaha loogu shaqeeyo iyo kuwa diblomaasiyiintu wataanba waxaa lagu xiraa taariko ay sumadeeda ka mid tahay CD oo la micno ah code diplomatic. Taasina waxay caddaynaysaa in gaarigu u shaqeeyo howlgal diblomaasiyadeed. Taasina waxay ka caawisaa inaan booliska wadooyinka ee taraafikada aysan gawaaridooda joojin, sidoo kale aan la baarin, canshuurna la weydiinin. Si la mid ah shaqo kasta oo la qabto, diblomaasiyadda dad ka shaqeeya ayaa la kulma caqabado badan, waxaana ka mid ah cimilada oo ah arrin muhiim ah. Wadamada caalamka ayaa ku kala duwan dhanka cimilada. Laga yaabay qof waddankiisu cimilo kulul leeyahay in shaqo loogu diro waddan baraf ka dhaco inta badan sanad, ama dhanka kale qof waddankiisu qabow ahaa loo diro waddan cimilo kulul. Waxaan iyana meesha ka maqnayn caqabadda amniga, oo diblomaasiyiin badan waxay la kulmaan xaalada amni darro xilliyo ay ku jiraan gudashada waajibaadka qarankooda ka saaran. Caqabad kale oo iyana in badan oo diblomaasiyiinta ka mid ah soo wajahda waa kala duwanaanshaha dhaqannada. Wadamada caalamka ayaa waddan kasta wuxuu leeyahay dhaqanno iyo caadooyin dadkiisu leeyihiin. Qofkii ku cusub oo diblomaasiyane laga yaabo inuu kala kulmo caqabad. Waxaa iyana xusid mudan caqabadda afka iyo cuntada. Guud ahaanse, tirada uu caqabad la kulmayo diblomaasigu waxay in badan ku xiran tahay heerka kala duwanaanshaha waddankiisa iyo waddanka shaqada loogu diray. Intaas waxaa noogu dhan soo jeedintii la xiriirtay diblomaasiyadda iyo xasaanadda. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin doono. Mahadsanidin.